الحمد لله رب العالمين soo dhawaada cashirkan waa cashirkii koowaad oo aan ku baranayno shan siyaabood ama shan qaab ama shan hanaan oo aad ku baran karto ma aad ku heli karto nidaamka shaqada la doonayo loolan waxaa loogu jiraa shaqada ninba tab ninba xeelad ayaa la isticmaalaa laakiin halkan cashirka waxaan kugu soo gudbinayaa shan siyaabood oo aad arki doonto shaqadu inaysan kaaga baahnayn khibrad aad arki doontaa marka halkaasaan tegi doonaa intaanan u gudbin qodobka koowaad maanka ku hay waxaa kuu soo gudbinaysa xarunta tababarka shaqada ee af Soomaaliga ku baxa Somali Job Training Center ciwaankeenuna waxaa weeye how to get a job with no experience yacni shaqada saa ku heli lahayd adoon khibrad lahayn khibrad kugu filan lahayn horey aadan u arag laakiin aadan ka soo shaqayn ayaan ku hayaa shan qaabood oo ka mid ah shantaa qeybood waxaa weeye qeybta koowaad intaanan u gudagelin aan kaa dhaadhiciyo ku fahansiiyo oon isla eegno qualification iyo experience maxaa u dhexeeya maxay kala yihiin taasaan horta ka falanqeynaynaa oon laba qaybood u kala saaraynaa aan eegno isla eegno qualification maxaa la yidhahdaa qualification waxaa weeyaan qofku waxa uu bartay oo jaamacad ooga soo baxay ama iskuul ooga soo baxay uu sito shahaadadeeda ama waraaqadeeda oo uu specialized ku yahay specialized uu ku yahay ayaa la yiraahdaa hebel waxaas uu qualify ku yahay ama hebel qualification kiisu waa degree oo civil waa degree oo telecommunication waa degree oo social science waa degree whatsoever experience marka experience-gu shahaado ma leh certificate ma leh laakiin haddii aad ka soo shaqaysay meelaha ka soo shaqaysay waxaad ka soo qaadan kartaa wax la yiraahdo recommendation letter baad ka soo qoran kartaa experience-gu marka waxaa weeye waa qofkani shaqadan raadinayo shaqadan rabo horey ayuu u soo qabtay shaqadan shaqa la mid ah marka waxaa dhahaysaa hadaad horey u soo qabatay shaqadan khibrad baan u leeyahay ama 6 bilood dheh ama bil dheh ama 2 isbuuc dheh ama sanad dheh ama 10 sano dheh waa waxaad ku soo jirtay oo aad taqaano hanaanka waajibaadka shaqada loo guto ayaa experience la yiraahdaa waxaan tegaynaa marka qaybta koowaad oo ah marka meeshan waxaa la yiraahdaa tips 1 baan iri maadaama tips 1 waxaan u iri title gaara ma siinin maadaama ay tahay 3 su'aalood oo weydiimadoodu ay hal meel ku wada socdaan marka waxaan siiyey ciwaanka tips 1 intaadan shaqada horta apply gareyn oo shaqada aadan aadinba waxaa weeye buug iyo qalin waa inaad soo qaadataa isa soo agdhigtaa oo dhahdaa horta shaqadani maxaan ugu baahanahay qodobka labaad waxaa weeye shaqadani maxay iiga dhigan tahay qodobka saddexaad waxaa weeye shaqadan haddii aad hesho oo ilaahay kuu sahlaba ood ku guulaysato maxaad ka helaysaa mushaarkeedu waa intee ciyaalka caafimaadkooda ma bixinayaan guriga kiradiis ma bixinayaan maxay leedahay ma jiif iyo hurdo iyo caafimaad maxay leedahay kugu soo kordhinaysaa maxaad yacni shaqadan aad ugu ordaysaa oo ugu dhimanaysaa oo faa'iido ah oo ka dambeeyo ayadana waa qaybta koowaad waa nooca qaybta labaad waxaa weeye inventory your skills waxaa la rabaa inaad yacni isticmaasho xeeladahaada ku gaarka ah inaad sheegtay decision makingkaada inaad ku fiican tahay ma garanaysaa time management inaad ku fiican tahay self motivationka conflict resolutionka inaad ku fiican tahay
oo ah Soomaali hadda ku xeeyo ability to work under pressure. Qofku waxaa la rabaa in uu hayin u yahay shaqada uu qabanayo dadku la shaqeynayo ama raalliisa siin meeshan waa la isku qaylin. waxaa jira decision making kaada intay u leeyihiin ma leedahay decision making adigu go-aan dhinaca go-aamiska ma ku fiicanta. Time management waa fara badan yahay laakiin waqtigaada ma koobtaa oo ma ilaalisa waqtiga lagu ilmaday oo meesha lagula xisaabtamay see u isticmaashaa. Self motivation kaadu waa xataa qof marka saa loo eego dismoral ah mise waa qof waxaa tahay furfuran oo fircoon oo la yaqaano oo wejigiisa furfuran yahay hadday baahiyaasi hadday family problem u jiraan la kala garanay. Conflict resolution waxaa weeye dhinaca islaax bayn naaska see ku tahay dadka markii meel la iskugu keeno khilaaf baa ka dhaco marka waa inaad tahay nabadoon inaad u midaysan tahay weeyaan aad ku suntanta. Leadershipka dhinaca hoggaanta adaptability-ga ka war ayadana la qabsiga qofku meel loo bedelaba waa inuu yahay kiawe ingiriis waxa loo yaqaan. Qodobka saddexaad waxaan eegaynaa transferable skills. Show transferable skills waxaa la rabaa in aad tahay adigu qof yacni gudbin kara khibradihiisa. haddaad civil engineering aad lahayd waa inaad yacni project management-ka taqaano, information management skills waa inaad wax ka taqaano, leadership waa inaad barato. waxaan takhasuskayga ma ahayn ma anfacayso. marka communication-kuna waxa weeye waa very important markii la eego dhinaca dadka lala shaqeeyo ama loo shaqeeyaha waa muhiim. marka ayadana qodobkaasu ka hadlaya waa inaad afartaa shay aad iskaga adkaysaa qodobkaa saddexaad. qodobka afraad waxaa weeye qofku PhD haddaa wadato ama master aa wadato ama jaamacad ka soo baxday cilmigu marna ma dhammaado. waxaa lagaa rabaa educate yourself inaad ahaato qof yacni wax raadiyo wax akhriyo koorsooyinka dadban ama waxbarashada dadban ee informal courseska waa inaad barataa. marka ma aha inaad certificate baan qaatay waayo hore waa iga bes maaha macnaha maalin walba wax akhrisan wax cusub baad arkay wax walba fiican haddaad raadiso wax fiican baad arkay. marka qodobka shanaad baanu tegaynaa connect the dots baa la dhahaa. waa in hoggaankaadu waad ku xirtaa qofka mas-uulka ah oo kaa sarreeya oo istustaa waxaan inaad taqaano waxaan inaad garanayso qaabka loo maareeyo tala bixintaad ku keenaysaa laakiin oo meesha dhexdiisa hor fadhiisidi mayso sidan baan aqaanaa oo sidan baan aqaanaa oo sidan ma aha waa inaad taqaanid. haddii laga hadlo budget iyo finance waa inaad taqaanid qaabka loo maareeyo. haddii laga hadlo mashruuc iyo maareyntiisa dejintiisa implementationkiisa waa inaad taqaanid. marka waxaa weeye qodobka saddexaad koowaad ee qodobka shanaad adoo ka raacay ayaa la doonayaa inaad fuliso oo ah show the employer what you can. wax alla waxa awood tus qofka u shaqaynayso si uu macnaha kuu aamino oo biri qof kale ugu baahnayn uu dhaho kan ayaa wixii oo dhanba buuxin karo. marka halkaas ayay noogu eg tahay waan filayaa inaad ka hesheen wixii commentiya waa ila wadaagi kartaan. waxaanad sameynaysaa insha allah waxaa soo socdo fiidiyoyo fara badan marka oo kala duwan oo ala job seekers-ka ama shaqo raadiyuhu uu ka faa'iideysanayo ugu talagalnay. marka soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.